waxaan ku hadlayaa anigu magaca dowladda xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliyeed magacayda kale ku hadlayo runtii waa nasmaha noo tahay in maanta madaxda dalka oo sii iyo beesha caalamka oo ku dalkan inaan uga jeedo baaqaasaan u jeedino kow dadweynaha Soomaaliyeed dhulku ay joogaan dabcan wax badan waxaa laga yaabaa inaan ku filaano haddaan Soomaali nahay laakiin dadka kale haddana wixii naga tafteeraada dad waxaan u baahnaa inaanu codsi u jeesano beesha caalamka runtii abaartani waa abaar aad u culus weeye marka la eego xadka iyo baaxadda ay leedahay hadda iyada oo 3 bilood iyo in ka badan ay ka dhiman tahay waqtigii ugu yaqaanay roobka dabcan maxamed ilaahay markasta iyadii maanta hadda meelaha qaarkood waxaa soo sheegay oo ka dhigeen